أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلامتين دمان أقسم وأكون مع صنتهاي وربحنتي كوبنايت تكجيدي سي runtii sida agaasime cabdicasiis uu hore u sheegay maadaama howlahaas baaxadda leh ay wasaaraddu hayso mar walbana wasaaraddu ay u taagan tahay in loo fududeeyo ganacsatada wax walba adeega wasaaraddu ay u hayso si loo horumariyo ganacsiga iyo warshadaynta dalka ayaa wasaaradda ganacsiga ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyada oo ka duuleysa baahida loo qabo in la helo habab casri ah oo diiwaan gelineed ayaa sida aad la socotaan waxa ay qorsheynaysaa wasaaraddu in ay hirgeliso mashruucan online registration oo iyadoo arintaasna barnaamijkaas kala kaashanaysa bangiga adduunka مشروعاً أو مالجرينتي سو بحنا بنك قدون كو أيا وزارة wuxuu ka caawinayaa hawlahan iyadoo mustaqbalka dhow qorshuhu yahay in la gaaro dhammaan maamul goboleedyada dalka oo nidaamkan ama systemkan uu noqdo mid isku xiran heer federaal iyo heer dowlad goboleedba wasaaradda ganacsiga warshadaha waxa mar walba ka go'an horumarinta saan hore u sheegay iyo casriyeynta adeegyada la xiriira diiwaangelinta ganacsiga saan la socono Soomaaliya ayaa waxay ku nooshahay dhanka ganacsiga sidaa darteedna waxa weeye wasaaraddu waxay damaanad qaadaysaa isla markaana ugu bishaareynaysaa ganacsatada Soomaaliyeed in laga gudbi doono insha Allah mar dhow mustaqbalka dhow hanaankii soo jireenka ahaa ee hore loogu diiwaan gelin jiray ama ha noqoto bixinta shartiyada cusub ama kuwa dib loo cusboonaysiinayna loona guuri doono nidaamkan online-ka ah oo qof walba asagoo goobtiisa gobolkiisa degmadiisa iyo magaalada uu joogo waxa way adeegaas marka waxa diiwaan gelinta uu looga fulin doono hadafka marka muxuu yahay ujeedada ama hadafka aanu ka leenahay guud ahaan mashruucan ayaa hadafka laga leeyahay waxay tahay marka ugu horeysa fududeynta diiwaangelinta ganacsiga labo dhiirigelinta maalgashiga saddex waxa weeye inaan la jaan qaadno waxa weeye ganacsiga caalamka ka jira saan la socotaan wasaaraddu waxa ay meel marisay sharciga shirkadaha December 2019 sidoo kalena waxaa jiray xeer nidaamiyihii sharciga shirkadaha oo wasiirkuna saxiixay December 2020 mashruucan hadda wuxuu ku jiraa marxalad tijaabo ama pilot testing wax la yiraahdo waxaana oo lagu tala jiraa sida ay hawsha u socoto in ayraayar in loo joojiyo habkan manualka ah isla markaasna waxa weeye loogu adeego macaamiisha iyo ganacsatada diiwaangelinta online-ka ah mustaqbalka dhow marka waxa xigi doona markaas laga gudbo marxaladan tijaabada in loo gudbo marka mashruuci waxa waaye daafurkiisi daafurkaas oo dhici doona marka laga baxo marxaladan tijaabada ah iyadoo ay ka soo qayb gali doonaan daafurkaas dhammaan daneeyayaasha iyo ka faa'iideystayaasha mashruucan sida aan ku tala jirno waxa weeye waxa la rabaa in la gaarsiiyo dhammaan dowlad goboleedyada daafurka kadib ayaa qorshahaas inoo qorsheysan mashruucan si degdeg ah loo gaarsiiyo dalka oo dhan maadaama dowlad goboleedyada xubnaha ka ah dowladda federaalka Soomaaliya ay mashruuca wax ka leeyihiin marka insha Allah waxa weeye waa intaas baan rabaa hadalka mar raba inaan ku sii dheeraado wixii inta ka dambeeya wixii faahfaahina oo ku saabsan habka systemkan u shaqeyn doono waxayna siin doona oo ku sii dari doona waxa weeye howlwadeenada farsamayaqaanada wasaaradda oo hadalka iga dambeyn doona marka waa mahadsantiin soo dhawaada insha Allah kulankeena iyo waa inoo furan yihiin wa salaamantii assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh